asxaabtu waa idin salaamay soo dhawaada ku soo dhawaada muuqaal kaleento oo aan uga hadlayo runtii wixii ka dhacay maanta golaha shacabka asxaabay xildhibaanadii maanta buuqay waraaqaha jeexjeexay waxay ahaayeen xildhibaano geesiyaal qaran badbaadiye qarankan badbaadiye dastuurka dalkan runtii naftiisa ku meel gaar ahay xildhibaanadaas waxay matalaan codka shacabka waxayna si dhaba maanta u mataleen shacabkii codkooda maxaa yeelay waxay muujiyeen maanta xildhibaanadii diiday cutubiyada dastuurka wax laga bedelo iyadoo aan loo marin hanaan sharci ah waxay noqdeen xildhibaano maanta si sax ah u difaacay qaranka iyo codka shacabka oo runtii ay matalaada shacabka ay matalayaan ayay maanta xaqiijiyeen oo ay ka run sheegeen waxay maanta isticmaaleen awoodii dastuurka u siinayay inay diidaan wax sharciga iyo dastuurka baalmarsan in golaha la marsiiyo ama dastuurka naftirkiisa cutubiyadiisa wax laga bedelo ayadoon loo marin hanaankii sharciga ahay ee dastuur wax looga bedelayo marka waa ku mahadsan yihiin aad ay u mahadsan yihiin xildhibaanadaas dadaalay muujiyay inay xildhibaano qaran inay ku taagan yihiin dastuur inay maaragtay waxa sharciga ku taagan yihiin inay matalaan shacabkan codkooda ay ku taagan yihiin shacabkan dulman ee aan hadli karin ee codkooda aan isu difaaci karin inay codkooda ku difaacaan oo maanta maaragtay muxuu ahay aan awoodoodii iyo xuquuqdoodii dastuuriga ahay aan la maroorsan oo runtii aan xoog lagu marsiisan oo runtii aan maaragtay iyadoo qolo gooni ay ku danaysanayso ayay diideen waana saxsan yihiin dadka dhahayo xildhibaanada fowdada sameeyey ama maaragtay muxuu ahay dhibka keenay waa in tilaab sharci laga qaadaa waxaan leeyahay sax ma ahan xildhibaanka walaalayaal haddii uu dhibaato ka dhex geysto golaha shacabka oo kulamada baarlamaanka oo buuq u bilaabo oo filimbi ku yeeriyo ayadoo qodobo dastuuri oo sharci laga hadlayo xildhibaankaas waxaa qabanayo wuxuu galay dembi oo ka galay golaha shacabka waxaana jiro shuruuc loo marayo walaalayaal marka xildhibaanada maanta buuqay waxay ka buuqeen walaalayaal sharci darro iyo qodobo dastuurkoo la rabay cutubyo kamid wax laga bedelo oo sifa sharci darraa wax looga bedelo waa diideen marka waxay xaq u leeyihiin inay diidaan inay ka hor imaadeen xaq u leeyihiin walaalayaal haddii xildhibaanka sifa sharciga oo qodobo dastuuri ah ama cutubiyad kamid ah dastuurka oo nidaam procedure sax soo maray oo in laga bedelo rabo hadduu ka hor yimaado oo firimbi ku yeeriyo oo buuq ka sameeyo waxaa qabanayo sharciga guddiga waxaa jira baarlamaanka uu leeyahay guddiga anshaxa iyo xasaanadda kaasoo xildhibaanka tallaabo ka qaadayo shuruuc tallaabada laga qaadayo waxay tahay marka hore guddoonka wuxuu u diro xildhibaankaas wuxuu u diraa warning oo digniin u diraayo waxaa laga joojiyaa hadallada kala fadhiga waxaa loo diiday inuu soo xaadiro kulamada baarlamaanka marka dambena guddiga anshaxa iyo xasaanadda ayaa tallaab sharci ka qaado ilaa xasaanadiisi laga xayoobiyo laakiin xildhibaanada maanta dooday sifa sharciga ku doodeen xaq dastuuriga ku doodeen dastuurkay ku taaganaayeen waxay diideen dastuurka la baar maro in madaxtooyada iyo guddoonku is-og ay qodob cutubiyada dastuurka runtii ay sifa sharciga ku ansaxsadaan oo ay amendment ku sameeyaan wax uga bedelaan ayay ku hor yimaadeen xaqay u leeyihiin sifa sharciga ku taagnaayeen sharci qabanaya ma jiro cid la xisaabtami karta ma lahan muxuu ahaay dembi ay galeenna ma jirto anaa halkaan in kaga sheegaya walaalay shalay markii muxuu ahaay madaxweyne xasan sheekh wuxuu ahaa shalay madaxweynihii maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii ka horreeyey oo 2 sano u dhiman tahay dhahayay muxuu ahaay diidanay oo baarlamaanka maaragtay muxuu ahaay ku mudaharaadayay oo dhahayay maaragtay waxa extension iyo muddo kororsi ma rabno marka maanta madaxweynuhu adiga waxaa ku hartay 3 bilood shalay waxaa diidaneed xubnahan diidan yihiin baarlamaanka madaxweynuhu anaga shacabka oo aan ahan aan diidanahay in dastuur oo loo baahan yahay in wax looga bedelo wadar ogol muxuu ahaay aan cutubiyada dastuurka wax looga bedeli karin ayadoo koox kaliya danteeda laga fiirinayo sax ma aha madaxweynuhu waa social contract waaye heshiis bulsho waaye walaalayaal shay aadamadoow way arkaysay guddoomiyaha baarlamaanka markii xildhibaanada buuqa sameeyeen wuxuu ka kaca kursigiisu ka cararay wuxuu shir jiraad qabtay daqiiqado ka hor shir jiraad qabtay asoo dhahayo 180 xildhibaan asoo dhahayo maaragtay muxuu ahaa ayaa loo qeybiyey wayna soo akhrisanayaan waana la meel marina waxbaana laga bedela cutubiyadaas ma loo joojinayo walaalayaal sax ma ahan shacabka Soomaaliyeedow xildhibaanadii maanta kacay waxay ku kaceen oo ay ka hor imaadeen xaqeena dastuuriga ah ilaalinayeen waxay diideen wax wada oglaan ahayn in la keeno golaha shacabka waana sax waa inaan ku taageernaa walaalayaal maxaa yeelay shalay farmaajo
wada sharci ku taagnay ayaa firimbi lagu yeerinayay oo 2 sano haystay oo wax badan qaban karay maanta ayadoo 3 bilood harsan tahay haddana cutubada dastuurka wax laga bedelo hanaan sharci aan loo marin wadar ogol oo ahayn ayaa la diidan yahay marka walaalayaal sax ma ahan waxa waaye xildhibaanada maanta waxay ku doodeen waa xaq dastuuriga ku taagnaayeen dastuur wax ka bedelidiisa waa tan shala soo sheegay oo aan iri marka wax laga bedelayo dastuur waa inuu soo maraa hanaan iyo procedure la ogyahay waa in muxuu ahaay guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka waa inuu soo jeediyaa wasaaradda dastuurka waa inay fududeysaa ka doodida iyo kulamada maaragtay muxuu ahaay iyo maaragtay maxaa discussion iska socdo ee wax looga bedelayo waa in labada gole baarlamaanka ka doodaan waa in tuutaad ay jirtaa waa in maaragtay marka dambe ay ansixiyaan labada gole saas ay xukuumadda maaragtay muxuu ahaay ay u soo gudbiso baarlamaanka golaha wasiir soo gudbiyaan saasoo ku ansaxaa ilaa marka dambe ay ansixiyaan مسؤولية ده حاسكله برلمانك وضم بس أنصحنت أنا أي أسكال عضو قاضي ولا عليه العيد كلية أقل هل أغلى كلية مسا ما أنصح سكره حكومة كلية ممل مرسكرته قدوم كي يبقى ما تغنى مدحتوي أسلوك ممل مرسكران وحكم بدلي كان عطوبي دستوري كمان بدلي كران بل وحي برلمانك كدعي أنا سلف يرين وحير جيت يسمع كلام haddana waxay asal dhageysano madaxweyne xasan sheekh oo runtii xilligii maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dhahayo ee ka hadlayo arrimaha maaragtay muxuu ahaay dastuurka iyo doorashooyinka kulli ka hadlayo bal waxay asal dhageysanaa asna waa kana mijro madaxweynaha dastuurku ilaaliyaha dastuurka waaye wixii dastuurku sida caadadu ahayd weligiiba dastuurka uu dhinac mari jiray mar kale haddana maanta dastuurka dhinac maray dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego madaxweynaha jamhuuriyadda xafiiskiisa shaqooyinka ka bilaabo karo asiga xafiiskiisa waxa diidan yihiin shaqada ugu weyn oo ugu muhiimsan oo madaxweynaha jamhuuriyadda xafiiskiisa ka bilaabato ayadoo meel kale aan ka soo bilaabin magacaabista prime ministerka waay shaqo kale oo rasmi ah markii xaalada ay jiraan waa gooni shaqo kale oo rasmi ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda xafiiskiisa ka bilaabatay ma jirto iska daa dastuurka wax laga bedelay iyo dastuurkiyo la waxeeyo iyo dastuurkiyo ma la magaciisay dhamaan ayadoon loo marin hanaan sharci ah ayadoon ahayn wadar ogol sax ma aha madaxweyne xasan sheekh shalay wixii aad diidaneed ayay maanta xildhibaanadan diidan yihiin haddaan shacabka Soomaaliyeed aan diidanahay adiga waxay tahay madaxweynihii dalkan adaa laga rabaa inaad noqoto ilaaliyihii dastuurka oo aad hay'adaha kale dawliga ka ogolaan in dastuurka la hareer maro oo ashfa sharci ah aan ahayn lagu meel mariyo ama cutubiyada dastuurka looga bedelo marka madaxweynuhu shalay waxa diidanida la diidan yahay waxa laga yaasho horjeedana ma ahan wax adiga shakhsiyan xukunkaada lagu haystay waa sharci dastuuri waay waa wada ogol waay waa dastuurkan cutubadiisa waxa loo bedeli karaa hanaan sharci ah in loo maro waa inay noqotaa wada ogol taasaa sax ah taasaa aan maaragtay muxuu ahaa sharciga iyo dowladnimada dalka u degsan madaxweynuhu aad ku timid oo ma dhid ku haysataa oo adaa laga rabaa inaad noqoto marka ilaaliyihii dastuurka inaad noqoto laga rabaa ma ahan inaad adiga qayb ka noqoto adiga guddoonka shaqada madooy hanaan qayru dastuuri ah oo qayru sharci ah oo sharciga baalmarsan oo dastuurka baalmarsan in cutubiyada dastuurka wax looga bedelo intaasaan dhihi lahaa aniga bal asxaabay wixii tala iyo tusaale qaybta hoose commentiga ku soo qora sida in la tahay xildhibaanadii maanta kacay ma sifa sharci ku tagnayeen mase waxay ahaayeen kuwa qalad maaragtay maxaa iyo ku xadgudub baarlamaan kulankiisi maadaama filimbi ay yeeriyeen dadka qaarna ay dhaheen waa xildhibaano fowdo abuuray fowdana ma abuuray aniga waxaan leeyahay fowdo ma is abuurin dastuur ay difaaceen waxay difaaceen dastuurka lagu xadgudub walaalayaal adiga daawanaya say kula tahay fikirkaada qaybta hoose commentiga ku soo qor ma kula tahay inay dastuur difaaceen mase waxay kula tahay inay fowdo iyo maaragtay buuqa dhex sameeyeen xaruntii golaha shacabka maanta haddii janaalkii ay ku cusubtihiin subscribe saara haddaa saarteen oo kuma santihiin inta muuqaalka wuxuu aan soo arki doonaa waxaan rajeynaa khayr caafimaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye